السلام عليكم. هجاميه مسلم كاها صلاح الدين الأيوبي هجاميه فاجر كاها أرناط. خبر أيا وحو سو غاري صلاح الدين الأيوبي إن هجاميه أفرنجي أرناط midkii xukumi jiray karag ee Filistiin in uu ku istaagay arin foolxumo badan arinkaas oo ah in uu wadada u galay muslimiintii u socotay xajka Ilaahay kadibna uu laayay haweenkii iyo caruurta asiga oo ku dhahaya u yeerta Muhammadkiina asiga oo la jeeda suubanaheena sallallahu alayhi wasallam u yeerta Muhammadkiina ha idinka difaacay waxa la idinku haayo intuu alla doonaba waxa soo baxsaday nin ka mid ah dadkii meesha joogay asiga oo la soo baxsaday naftiisa waxa uu si toos ah ugu yimid Salaaxudiin al-Ayyubi asiga oo ugu sheekaynaya waxa meeshaas ka dhacaya haddaba ma filan kartaa waxa ku dhacay Salaaxudiin al-Ayyubi balse muxuu ahaa mowqifkiisa Salaaxudiin Allah u naxariistay waxa uu ka go'ay gurigiisa waxa uu na gudagalay in uu ooyo 2 maalin oo kaamil ah asiga oo dhahaya Rabbi yawm Isa maxaysa in aan naa'ib ugu noqdo rasuulkaaga Muhammad sallallahu alayhi wasallam difaacida ummadiisa kamuusan zuulin Salaaxudiin inuu arinkaas ku soo celceliyo ilaa uu dhamaaday maalinkii labaad kadibna waxa uu diyaarsaday Salaaxudiin ciidankiisa waxa uu ku yiri Salaaxudiin ciidankiisa khudbadan gaaban waxa uu ku dhahay ciidankii Muhammad sallallahu alayhi wasallam arnaad midkii xukumayay karag way isweynaysay kor ayuuna isku qaaday waxa uu laayay xujaajtii beedka alle u soo socotay waxa uu daadiyay dhiigii caruurta iyo haweenka asiga oo leh u yeerta Muhammadkiina ha idinka difaacay dib kale idinku haayo anigana waxaan naftayda siiyay ruuxdayda si aan ugu noqdo naa'ib Muhammad sallallahu alayhi wasallam difaacida ummadiisa qofkii doonaya in uu ila baxo haddaba ha isoo gaaro oo ha isoo raaco kadibna ciidankiisa ayaa si hal mar waxa ay ku dhaheen kulluna fidaa'un li rasuulillah dhamaanteena waan isku furanaynaa rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam markii la soo gaarayna macarikadii loo yaqaanay Xidiin ay ku guuleysteen Salaaxudiin iyo ciidankiisa waxa la soo qafaashtay arnaad jabkii weynaa kadibna Salaaxudiin al-Ayyubi ayaa weydiiyay ninkaasi waxa uu ku yiri ma adiga ba midkii yiri u yeerta Muhammadkiina ha idinka difaacay oo ha idinka celiya waxaan la idinku haayo kadibna kii arnaad waxa uu yiri haa kadibna waxa uu ugu jawaabay Salaaxudiin anigaan aad ii jeedo adoonka faqiirka ah waa midka aad arkayso oo hortaada taagan maanta waa midka naa'ibka noqday rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wasallam difaacida ummadiisa kadibna waxa uu ka gooyay madaxa haddaba maxaa is leedahay haddii uu markaa nabiga joogi lahaa sallallahu alayhi wasallam